bismillaahi raxmaani raxiim waxaan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maracadda show waa 18 bisha Juulaay maalin sabti ah sanadka 2026 aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay duqeymaha culus ee laga fulinayo gudaha dalka Iiraan waa maxay ujeedada Mareykanka uu ka leeyahay ma howlgal dhanka dhulka ah afar arrin oo halis weyn ku ah dowladda Iiraan iyo Iiraan oo sheegtay 5 dekedood inay beegsan doonto oo qaliijka ku yaala haddii laga beegsado mid ka mid ah dekadaheeda shantaasi dekedood halkee ayay ku yaalaan waa maxay saameynta dekadahaasi haddii la weeraro Shiinaha iyo Mareykankaba ay ku yeelanayso ma si dadban ayaa dagaal lagula jiraa dowladda Shiinaha Iiraan iyo Shiinahana miyay iskaashan doonaan tallaabada Shiinaha uu qaaday iyo dhaqdhaqaaqa gobolka ka soconaya waxaan kaloo aan kula wadaagi doonaa boqortooyada Sacuudiga oo afar bal kadib heegan ka gashay weerar kaga imaanaya dhanka iyo dowladda Iiraan guud ahaan gobolka miyay sheekada ku ballaaran doontaa qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo maracadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa aabbo cabdi nuur cismaan oo iisoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahadiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan dowladda Mareykanka ayaa waa berigii sabtida maanta waxay duqeymo culus ay ka fulisay gobolada Bushehr iyo sidoo kale Hormuzgan oo ka tirsan dalka Iiraan kuwaas oo lagu bartilmaameysada dhismooyin dhulka hoostiisa ah wadooyin muhiim ah iyo buundooyin ku yaala gudaha dalkaasi waana buundooyin inta badan muhiim u ahaa isu socodka koonfurta dalka Iiraan gobolada dhaca ilaa iminkana ma jiro dhimasho iyo dhaawac la diiwaan geliyay laakiin gudoomiyaha gobolka Bushehr Maxamed Musaafiri ayaa wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan u sheegay in inta badan duqeynta ay ka dhacday magaalada lagu magacaabo Joogtahaag halkaas oo duqeynta waa berigii maanta Mareykanka uu ku garaacay xarumo muhiim ah oo ku yaala gudaha magaaladan gaar ahaan buundooyinka waxaa sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda Iiraan ay sheegeen in hay'adaha ay qusayso dhacdooyinkan ay baaritaan ku sameyn doonaan duqeynta iyo khasaaraha shacabka soo gaaray gobolka Hormuzgan waa gobol muhiim u ah dowladda Iiraan waxaana ciidamada Mareykanka ay sheegeen inay mar kale ay duqeymo ay ka fuliyeen duqeynta inta badanna waxa lagu garaacay buundada Nahrijur lagu magacaabo buundadan waa mid muhiim u ah dowladda Iiraan sababtoo ah magaalada Shirjan iyo magaalada Bandar Abbas ayay isku xirtaa waxaa sidoo kale la weeraray buundo kale oo isku xiraysa magaalada Minab iyo magaalada Rudan gaar ahaanna meel ka dambaysa isgoyska Zarzeh oo dalkaasi Iiraan taasoo ka dhigan in Mareykanka uu u soo dhigtay inuu beegsado buundooyinka iyo kaabayaasha muhiimka u ah dhaqdhaqaaqa ciidanka dowladda Iiraan dhacdooyin muhiim ah oo sababta buundooyinka loo beegsanayo ku xiran ayaan kula wadaagi doonaa laakiin marka hore goobaha la beegsada aan eegno Mareykanka sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan beegsanay mid ka mid ah dhismayaasha dhulka hoostiisa oo ah wado muhiim ahayd oo isku xiraysay magaalada Bandar Abbas iyo Xajaybaad magaalada lagu magacaabo tanalkaasi waxaa la sheegay in labada dhinac weerar looga qaaday sidoo kalena ay u badan tahay inuu gabi ahaanba uu xirmay maamulka Hormuzgan waxay shacabka ugu baaqeen inay ka fogaadaan isticmaalka wadooyinkaasi ilaa ay amar dambe oo dib u dayactir ayaa lagu sameyn doonaa markaad eegto marka duqeymihii ugu dambeeyay ee Mareykanku uu ka fuliyo gudaha dalka Iiraan iyo sida dhacdooyinka isugu xiran yihiin waxba ku bidhaamaya tusaale ahaan Mareykanka duqeymaha uu ka fulinaya Iiraan ee 10kii bishan soo bilaabatay waxa uu ka bilaabay wadooyinka tareenada ah gaar ahaan wadadii muhiimka ahayd ee isku xiraysa Iiraan Ruushka ilaa sidoo kale dhanka Shiinaha ujeedka halkaasi laga lahaa waxay ahayd in sahay badan aysan Iiraan kaga soo gudbin dalalkan waxa sidoo kale la bilaabay dhaqdhaqaaqii ahaa in dekadaha laga godoomiyo ujeedada labaad ee laga leeyahay waxay tahay in Iiraan dhanka badda aanay waxba uga imaanin sahay iyo wixii doontaba ama wax kasta ay noqdaanba waxa sidoo kale la bilaabay in dowladda Iiraan laga bartilmaameysado dekadaha laga bartilmaameysado taawarada laga bartilmaameysado shidaalka iyo magaalooyinka la isdhihi karayo ugu yaraan dhaqdhaqaaqa ciidanka marka ay sameeyaan howlgal dhanka dhulka ayaa la qorsheynayaa way ka soo dhaqaaqi doonaan si ay gurmad ay ugu sameeyaan ciidamada aan kula wadaago marka ilaa 5 ujeedo oo midba midka kaleba ay ka daran tahay oo Mareykanka uu ka leeyahay duqeymihii ugu dambeeyay uu ka fuliyo gudaha dalka Iiraan ujeedada koowaad Mareykanku waa inuu go'doomin ku sameeyo xeebaha dhanka koonfureed ee dalka Iiraan gaar ahaan magaalada Bandar Abbas iyo gobolka Hormuzgan sababtu maxay tahay deegaanadani waxay muhiim u yihiin ciidanka badda ee ilaalada kacaanka
waxaa kaloo ay muhiim u yihiin difaaca xeebaha iyo howlgallada iiraan ay ka fuliso marinka hormus. haddii marka buundooyinka, wadooyinka, goobaha tareenada ay maraan iyo xarumo kaleba la burburiyo, maraykanka wuxuu isleeyahay oo xisaabaadka uu ku darsaday waxaa adkaan doonta in tehraan ay koonfurta usoo dirto ciidan, sidoo kale gantaalla halkan loo soo diro, shidaal la soo gaarsiiyo, rasaasta iyo qalab kalena ay soo gaaraan bandar cabaas iyo gobolka hormusgan si ciidanka aysan u helin sahay ay kusii dagaalamaan. ujeeddada labaad maxay tahay? ujeeddada labaad xisaabaadka la isku dhifsada waxay tahay in lays yidhi waxaa wiiqmaya awoodda dowladda iiraan ay ku xakamayn karto kuna carqaladayn karto maraakiibta ka gudbaysa marinka hormus. oo maraykanku wuxuu aaminsan yahay in munaaradaha ama goobaha laga hago ee maraakiibta haddii la burburiyo, gaar ahaana dekadda shaahid kalantari oo ku taala magaalada jabahar, waxay qayb ka noqonaysaa in iiraan laga burburiyo shabakad ay u adeegsan jirtay la socodka maraakiibta ganacsiga ee marinka hormus maraya iyo weliba xitaa gacanka cumaan maraya. waana sababta ay iiraan inta badan ay u lahayd yani markab aan annaga amar naga soo qaadan halkaasi ma ka gudbi karayo. maraykanka markii si maraakiibta ay hormus ay u maraan wuxuu is yidhi dekedan waa meesha dhaqdhaqaaqa ugu badan maraakiibta lagala socdee waa in la baabi'iyaa. ujeeddada saddexaad maxay tahay? ujeeddada saddexaad waa in iiraan gacanteeda laga bixiyo marinka hormus. si arrintaasi loo dhaqangeliyo waxaa dhaqaale la weydiiyo dowladaha khaliijka. marka hore si toos ayaa loo weydiiyo, waxaa la yidhi markab kasta oo halkaasi ka gudbaya lacag ayaan ka doonayaa, maxaa yeele aniga qaraashaad badan ayaa igaga baxaya inaan halkan difaaco, sababtoo ah aniga shidaalkiina iyo yani wax dani igaga jirta malahan, oo venezuelana gacanta ayaan ku haystaa, dowlada anigana shidaal ayaan leeyahay, dowlado kalena heshiis ayaan la geli karaya, sababtoo idinka ayaan idiin danaynayahay waa inaad bixisaan dhaqaalaha magdhowga ah. haddii kale waa inaad bixisaan 20% maraakiibta halkan ka gudbaysa. dowladihii khaliijka marka arrintaasi aad bay kaga cawdeen. dhinaca kalena madaxweyne Trump alaabtaas way u heergasho, wuxuu yidhi maalgelin ayaan ka helay dowladihii khaliijka, sidaa daraaddeed waan joojiyay. yacni lacagtii maraakiibta laga qaadi lahaa ayaa si dadban looga ogolaaday. waana waxay markii hore ay dowladahani ay diidanayeen in iiraan ay gacanta ku dhigto marinka hormus, yacni gacanta wayba ku haysaa, kadibna ay dhaqaale ay ka soo rogto maraakiibta, oo iyada halkii barmiil $1 oo keliya ayay ka rabtay. laakiin hadda lacag ka badan ayay maraykanka u ogolaanayaan. waana sababta saddexaad ama ujeeddada saddexaad ee maraykanka iyo xulafadiisa xisaabaadka isku dhifteen, maadaama dhegta dhaqaalaha uu maraykanka wax ka maqlo. waxaa jirta ujeeddo afraad oo aad u khatar badan, waa ujeeddada diyaarinta howlgal dhanka dhulka ah. maraykanka marka uu burburinayo wadooyinka, qadadka zaadka iyo xarumaha kale, ujeeddadu waxay tahay in ciidanka difaaca ee goob ama magaalo ku sugan inaysan helin wax u soo gurmada. sidoo kale in la beegsado xarumaha biyaha iyo cuntada iyo tamarta iyo isgaarsiintana waa cadaadis la doonayo in iiraan gudaha uu kaga yimaado, gaar ahaan shacabka inuu cadaadis kaga yimaado. iiraan intaas oo cadaadis ayaa saaran. sidaa daraaddeed marka iiraan iyagana waxay tiri annagana jawaabteenna waxay ku dhici doontaa khaliijka, ama dhaqaala ha bixiyaan ama yaanay bixin. annagana khaliijka ayaan beegsan doonaa, iyaga ayaa inoo dhow, iyaga ayaa maraykanka soo dhoweystay, saldhigyadooda iyo magaalooyinkooda ayaana laga soo weerarayaa oo diyaaradaha maraykanka laga soo kicinayaa, gaar ahaan kuwa daroniska iyo kuwa duqaymaha fulin karaya. dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay haddii aan eegno, maraykanka waxaa lagu warramayaa diyaarado badan oo shidaalka hawada ku siiya diyaarado kale inuu gobolka bariga dhexe u soo diray. israa'iil ayaana inta ugu badan diyaaradahaasi ay ku degan doonaan. waa tii dhowaan ay ka cabanayeen israa'iiliyiinta in diyaarado badan oo maraykanka halkaasi uu kaga xayray dhaqdhaqaaqyada badan iyo duulimaadyo ay samayn lahaayeen. markii ugu horreysana dowladda iiraan 4 bilood kadib gobolada qaraj iyo yambu lagu magacaabo ayay beegsatay oo boqortooyada sacuudiga ah. dhaqdhaqaaq xoogan ayaa halkaasi ka soconaya, nidaam difaacid ayaa la kiciyay, inkastoo dadka hadda loogu baaqay inay isdejiyaan. sidoo kale waxay sheegeen inay beegsadeen saldhig maraykanka uu halkaasi uu ku leeyahay, iyadoo nidaam difaaciidyadana heegan la geliyey. dhinaca baxrayn marka la eego dowladda iiraan, gaar ahaan ilaalada gacanka qoraal ayay soo saareen. waxay sheegeen inay beegsadeen baqaar lagu keedinayay diyaaradaha ee droniska iskaxaynaya iyo doomo dheereeya oo maraykanka halkaasi uu keenay, kuwaasoo iyagana kaligood iskaxaynaya, laguna beegsaday qaar ka mid a dekadaha ku yaala gudaha dalkaasi iiraan. wax walba oo ka soo kordho macluumaadkan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha allah. dowladda shiinaha waxaad moodaa saameyn taban inuu ku yeelanayo dagaalka hadda ka soconaya bariga dhexe. maraykanka oo isku dhifsaday xisaabaadna waxa uu ka fakerayaa in shiinaha dhankiisa dagaalka qayb uu ka noqdo, yacni saameynta dagaalka ay gaarto, maadaama shiinaha iyo maraykanka loolan aad u adag uu ka dhexeeyo, dagaalna uu dhex marayo.
maxaa yeelay saacadihii ugu dambeeyey waxa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in shiinaha uu waayay shidaal aad u tiro badan oo raqiisa oo uu ka heli jiray dhanka iyo dowladda iiraan sidoo kalena waxa ay waayeen mid ka mid a macdanada muhiimka ah ee ay ka heli jireen dhanka iyo dalka qatar oo loo isticmaalaya qaboojinta warshadaha kala duwan ee gudaha dalkaasi shiinaha si gaar ahaaneed macdanta lagu magacaabo helium ayaa lagu warramaya shiinaha inuu ka waayay dalka qatar maadaama qatar ay joojisay soo saaridda macdantaasi haddaba dagaalka shiinaha oo keliya saameyn kuma yeelanaya waxa uu saameyn ku yeelanaya dowlado badan oo gobolka bariga dhexe ku yaala waxaa sidoo kale uu saameyn ku yeelanaya guud ahaan caalamka iiraan maadaama laga bartilmaameysada dekada muhiima markan waxay si cad u sheegtay haddii maraykanka uu sii wado bartilmaameysiga dekada lagu magacaabo jabahar iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda iiraan inay beegsan doonaan 5 dekadood oo qaliijka ku yaala shantaasi dekadood waxay saameyn ku yeelanayaan marka dowlado badan oo gobolka bariga dhexe ah waxay saameyn ku yeelanayaan shiinaha waxay saameyn ku yeelanayaan qaaradda afrika iyo sidoo kale ganacsiga la isaga kala gudbin jiray wadamo badan oo caalamka ah iiraan waxay si cad u sheegtay shantaasi dekadood inay kala yihiin dekada jabal ali oo imaaraadka ku taala dekada mina salmaan oo ku taala baxrayn dekada shucayba oo ku taala iyo xerada lagu magacaabo kam arifjan oo dalka kuwait ah dekada xamed oo qatar ah iyo dekada boqor fahad ee magaalada yambu ku taala oo warshadaha muhiimka u ah dhanka iyo boqortooyada sacuudiga dekad walba marka maxay muhiim u tahay shiinaha marka laga eego dhanka maraykanka marka laga eego wadamada kale ay saameynta arrintan ay ku yeelan doonto maxay tahay markaad eegto in iiraan dekadahan ay beegsato iyadoo ka jawaabaysa weerarka ka imaanaya dhanka iyo dowladda maraykanka laba culeys ayaa ka dhalan kara ama ay keeni kartaa waxay keeni doontaa culeys ah in dowladaha qaliijka maraykanka ay yiraahdaan war annaga darteen dagaalka uguma jirtide dantaada ayaa ugu jirta annaga iyo wax walba saameyn nagu yeesheen oo marinkii hormusna waa naga xiraya wax nooga gudbayana ma lahan kaabayaasheenii dhaqaalahana waa la baabi'inaya dagaalkaa naga jooji yacni lacag kastii wax kastoo aad doonaysa annaga ayaa ku siinayna yacni halkaas in culeys weyn uu ka yimaado arrinta kale waxay saameyn ku yeelan doontaa dhanka iyo dowladda shiinaha oo isagana aad muddo dagaalka inuu ku soo birayo marxadda xitaa waxa ay ka fikirayaan inay sameeyaan waddo tareen oo aad u dheer oo shiinaha u maalgashan doono oo si toosa u gaari doonta dalka iiraan oo aan laga beegsan doonin inkastoo waqti ay qaadanayso tallaabooyin kalena hadda ay qaadeen dekadaha marka culayskaas ayaa ka imaan doona laakiin yaa kale oo culays uu ku yeelanaya sidee shiinaha ay u saameynayaan haddii dekadahan la beegsado sideyna ilaa afrika sheekadan ay u soo gaari doontaa dekad walba iyo waxay qabata aan kula wadaaga marka laga eego dekada dalka isotaga imaaraadka carabta gaar ahaan dekada jabal cali lagu magacaabo muxuu shiinaha u adeegsadaa shiinaha haddii dekadan la bartilmaameysado ama gebi ahaan ay xiranto waxa uu waayi doonaa xaruntiisa ganacsiga iyo dhoofinta maxaa yeelay dekadan waa goobta ugu badan ee shiinaha uu yani badeeco aad u tiro badan uu geeyo dhaqaalana uu ka sameeyo gaar ahaan qalabka elektroniga mashiinada qaybaha baabuurta kuwa dharka alaabaha guryaha dhismaha iyo badeecadaha kale ee macaamiisha halkan ayuu geeyaa kadibna imaaraadka ayaa wuxuu u sii kala diraa min sacuudiga imaaraadka dhexdiisa ciraaq wadamada qaaradda afrika oo ilaa soomaalida xitaa ilaa dekadaas ayuu ku xiran yihiin oo ay waxay ka soo iibsadaan iyo wadamo badan oo qaaradda afrika ah suuqyo kale oo caalamkan ah waa loo iibgeeyaa dekadan marka maadaama ay konteenaradaas iyo kiimikooyinka beeraha loo adeegsaday wax walba ay qaabisho waxay ka dhigan tahay saameynna waxay ku yeelan doonaan dowladahan idinla wadaagay shiinahana dhaqaalihiisa hoos u dhac ayaa ku imaanaya halkaas marka waxaad ka arkaysaa dagaalka in shiinahana qayb uu ka yahay ama saameyn uu ku yeelan doono iyadoo iiraan ay cadaadis ay ka doonayso dowladaha qaliijka si maraykanka uu joojiyo kaabayaasha muhiimka ah yacni waxay taagan tahay annaga kaligeen ma khasaari doono haddii dekadaas marka waxyeelle ay gaarto ama hakad uu ku yimaado shiinaha hoos u dhac weyn waxaa ku imaan doona badeecadihii qaliijka soo gaari jiray xaruntii kaydinta iyo dib u dhoofinta maadaama halkaas xitaa wax badan lagu keedin jiro oo shiinaha laga keenayay iyo maraakiibtii biraha iyo waxyaabo kala duwan keeni jiro min shiinaha bariga dhexe ilaa afrika isku xirayay haddii dhoofintaasi hakad ay gasho yani sheekadan way isku xiran tahay ilaa qaybta dambe ayay saameyn ku yeelan doontaa dekadan marka muxuu maraykanka u adeegsadaa oo weyn doonaa marka maraykanka sida shiinaha oo kale badeecada halkan kama soo dejiyo laakiin waxa uu weyn doonaa maraykanka shidaalkii maraakiibtiisa oo halkaasi laga soo dejinayay cuntadii iyo sahaydii ciidankiisa ay isticmaalayeen qalabka dayactirka iyo farsamada rasaasta iyo agabka kale ee howlgallada maxaa yeelay wax si toos uga yimaada maraykanka oo haddana imaanaya dekadaha ku yaala qaliijka way yar yihiin oo dhanka dhoofinta marka laga hadlayo okay markaan eegno dhanka iyo dalka kuwait
ama baxrayn aan ku hormarno baxrayn oo kale shiinaha wuxuu halkan uu ka soo dejiyaa waxyaabo badan sida aluminiumta waxyaabaha aluminiumta laga sameeyo badeecadaha kiimikooyinka badeecadaha shiinaha oo la gaarsiiyey ilaa suuqyada dalka baxrayn iyo maraakiibta iyo shirkadaha shiinaha ee gobolka oo halkan xarumo waaweyn ku leh shidaalka ceeriin oo kale iyo kan la sifeeyo oo kale iyo waxyaabaha petrochemicalka loo yaqaano iyo kiimikooyinka iyo bacriminta warshadaha iyo waxyaabahaas oo dhan ayuu shiinaha weyn doonaa oo inta ugu badan halkan laga dejiyo laakiin marka kuwait la joogo maraykanka muxuu weyn doonaa kuwait xarunta lagu magacaabo Cam Arifjan deked uma ahan waana laakiin xaruntiisa ugu muhiimsan ee zaadka ciidamada dhulka ee maraykanka ee gobolka ku sugan laga soo dejiyo haddii waxyeelo la gaarsiiyey halkan marka waxa waxyeelo ay gaari doontaa baqaarada lagu kaydiyo gawaarida dagaalka qalabka hubka iyo sahayda kala duwan ee ciidankiisa ee ciidanka Centicom loogu yaray isticmaalan gabi ahaanba waxyeelo ayaa gaari doonta taangiyada iyo gawaarida gaashaamaan iyo kuwa xamuulka qaada iyo ayuu maraykanka weyn doonaa sidoo kale waxaa maraykanka halkan uu ku leeyahay mid ka mid ah saldhigyadiisa ugu muhiimsan iyadana ciidanka halkaasi kaga sugan waxyeelo ayaa gaari doonta laakiin markaad eegto guud ahaan waxaad moodaa maraykankana dhanka ciidanka inuu ku qasaari doono dekadahan haddii ay xirmaan shiinahana dhanka dhaqaalaha maxaa yeelay shiinaha isaga saameyn military halkan kuma lahan ama qaliijka kuma lahan wixiisa waa ganacsi si aamusnaan ayuun ula ganacsadaa dowladaha kala duwan ee caalamka dekeduhu saas ayay muhiim u yihiin ilaa laga gaaro qatar oo shidaalkii laga dhoofinayay sacuudiga iyo dekadaha kale ee ku yaala gobolka oo dowladda iiraan ay sheegtay inay beegsan doonto haddii dekadaha la beegsanayo maraykanka uu sii wado iyo xarumaha kale ee kaabayaasha ah maxay kula tahay adiga qaybtoos aragtidaada ku reeb inkastoo macluumaadka uu dheeraa haddana anagoo waqtiga ka faa'iidaysanayno maadaama sheekooyinka isu egyihiin ayaan sidaasi u soo koobay like saar muuqaalka haddii aad halkan soo gaartay la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay macluumaadyada kale haddii aan soo koobo dalalka qaliijka ayaa moodaa markaan inay raadinayaan iskaashi military oo dowladda Pakistan ay la sameeyaan Bahrain iyo Kuwait iyo Jordan ama Urdun ayaa hadda aad u xiiseynaya Pakistan inay heshiis military ay la gaaraan heshiiskan ayaa waxaa lagu bedeli karayaa xoojinta iskaashiga dhinacyada tamarta iyo maalgashiga iyagoo dhanka dhaqaalahana dowladahani ay doonayaan dhanka ciidankan iraahday ay dowladahani ay doonayaan si lamid ah heshiiskii Sacuudiga uu la galay dowladda Pakistan Pakistanna dhankeeda waxa laga doonayaa wada hadalka inay sii wado lana soo gabagabeeyay xiisada dhanka gobolka inkastoo aad muddo wax walba inay faraha ka sii baxayaan arrimahan oo idil waxyaabaha ka soo kordha guud ahaan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay